بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين sidii caadadaynoo ahayd haddii alla uu doono waxa aynu su'aalihii dadweynuhu ay soo qoreen baynu sheekha ku dul akhriyi doonaa saa'ilkani waxa uu leeyahay sheekh waxaan ahay shaqaale u shaqeeya kombaniyada ama shirkadaha waaweyn waxaana jirta in shaqaalaha shirkadda ka shaqeeya la siiyo afur uu bixiyo cidda shirkadda ka mas-uulkii waxaanan ogaaday in markaa afurkaa laga jaro sakada xoolaha ninkaas uu iska leeyahay arrinta noocaasiya in la qaato oo qof afurka noocaasiya la isticmaalo maxaa uu sharcigu ka qabaa afiiduuna baaraka allahu fiikum alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kaiira rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam qofka qof sooman afuriya ajar weyn buu u sheegay waxaanu tilmaamay qofkaas sooman ee uu afuriyey ajarkii soomkaa uu ka helay kaa afuriyeyna mid leeg inuu ka helayo iyadoo kii la afuriyeyna ajarkiisa aan waxba laga nuqsaamin ahayn taasi waa masalada labaad qofka markaasa ka bixinaya shardi ma aha cidda sakada uu siinayo inuu u sheego inay sake tahay inuu siiyo uu gaadhsiiyo ayuunbaa waajiba masalada saddexaadna waxay tahay sakada cid walba lama siin karo ilaahay subxaanahu wa tacaala dad gaar oo 8 nooca oo lagu sheegay suuratu tawba oo kuwa ugu horeeya ilaahay ugu hor sheegay maantana dhexdeena jooga ay ka mid yihiin alfuqaraa walmasaakiin faqiirkuna waa qofka aan waxbaba hayn ama waxa uu hayaa aanay meelna kaga dhacahayn baahidiisii miskiinkuna waa qof wax haya waxaasi baahidiisii waxbuu ka daboolayaa meel buu kaga dhacayaa laakiin baahidiisii ma wada daboolayo waata keentay in ilaahay subxaanahu wa tacaala dad lahaa doon ay kireeyaan oo waddamada u kala gooshto badaha mushaaxda inuu ilaahay masaakiin ku sheegay faama asafiinatu fakanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxr marka dadka ilaahay uu sheegay cid aan ahayn sakada lama siin karo haddii shaqaaluhu ay yihiin dad masaakiina ama fuqara ah sakada waa la siin karaa biniyati zakaa iyadoo sababta loo siinaya ay tahay miskiinnimadooda iyo faqiirnimadooda awgeed laakiin labadaa haddaanay midnaba aanay ahayn iyo kuwa kale ilaahay aayadda ku sheegay lama siin karo sakada ama afur ha lagu magacaabo ama xaqulciid ha lagu magacaabo ama wax kaleba ha lagu magacaabe wax kaloo iyaduna muhima oo aan ku baraarujinayaa dadkeena baayac mushtarka ah waxaan ogaaday dadka ganacsatada ahi dadka u shaqeeya ayay sakada siiyaan ama ay wax ka siiyaan dadka u shaqeeya waa inaa horta la kala hubsado dadkii sakadu ku baxaysay inay yihiin iyo in kale ila shaqaale inuu yahay uun qofku sake kuma mutaysanaye waa talabaade marka sakada la siinayo haddii ay niyadu tahay qofkani si fiican ha u shaqeeyo oo wax soo saarka ha kordhiyo waxay taasi noqonaysaa qofku sakadii uu isagu bixinayay inuu doonayo inuu ku intifaaco wax kaga soo noqdaan qofkan shaqaalaha sakadii wuxuu u siinayaa si aanu uga tegin oo shaqadiisa ayuu jeclaystay ama si uu daacad ugu noqdo shaqada uu kordhiyo ama wax soo saarkiisa si uu u badiyo
markaa sakadiisii buu isagu doonayaa inuu ku intifaacay wax dib ugaga soo noqdaan wahada laa yajuus iska dhaaf sakada waajibkaaye sadaqada sunnaha ah ee qofku uu bixiyey ayaanay bannaanayn inuu dib u iibsado waxaa cumar ibnu khadaab radia allahu canhu uu yidhi sida bukhaari saxiixiisa ku wariyey xamaltu rajula calaa faras fii sabiili illah nin baan faras siiyey si uu ugu jihaado fawajadtu aladii acطaytuhu yabiicuhu biruksin waxaan la kulmay uhi ninkii aan faraska siiyeyoo si uu ugu jihaado oo faraskii iibinayo weliba qiimo jaba ku iibinaya tara rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaan la tashado aan kuhi rasuulka ilaahay ow faraskii aan sadaqada u bixiyey oo la iibinayaa baan arkee ma iibsadaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi laa tashtarih wain acطaakahu bidirhamin walaa tacud fii sadaqatik ha iibsan buu yidhi hal dirham xataa hadduu kaa siiyo qiimaha u jaban ha ku noqon sadaqadaada hadda bilaash ugumay soo noqon ahayn cumar sadaqadiisu ee waabuu iibsanayeyba laakiin waxaa meesha ku jira qofka shaygii aada siisay zakadii aada siisay ama sadaqadii aada siisay haddii aada doonto inaad ka iibsato wuu kuu habranaya oo kaa siin maayo qiimaha dad kale uu ka siinayo aadna kuula gorgortami maayo ee gacan baad ku leedahay waa qof aada wax siisay marka faraska aad ilaahay daraaddii u bixisay haddaad iibsato kii aad marka hore siisay wuu kuu habranaya wayaan macno marka waxa uu kaaga daayey inaad siisay awgeed waa in sadaqadaadii ka mid ah oo aad dib aad ula noqotay marka bal ka waran sakadii haddaad dadka u siinayso si ay yacni sakadaasi wax kuugu soo celiso oo nafci iyo waxtar uu kaaga soo galo ma bannaana hada laa yajuus si aanay taasi u dhicinna sida axwadkii waxa weeye ee xalaal miiradku uu ku jiraa dadka fuqarada iyo masaakiintu aad bay u tiro badan yihin in qofku uu siiyo dadkaa shaqaalihiisa dadaan ahayn dadkan shaqaalihiisa haddii uu doonayo inuu ixu tarana inuu sidooda sadaqad kaloo sunnaa uu siiyo ama hadiyada waxa weeyaan uu siiyo haddii uu doonayo inay isjeclaadaan oo quluubtooda ay isku soo dhowaato qofka markaa shaqaalaha ah ee aan faqiir iyo miskiin midna baan ahayn mid walbana xadkiisa waa tilmaanaye ee qofku u shaqaynayaa xoolo saka inuu siiyo uu ogaadana sakadaasi xalaal uma aha waayo rasuulku wuxuu yihi innaha laa taxilu lighaniyin walaa lidii miratin sawiyin xalaal uma aha sakadu qof haniya oo wax ku filan haysta markaa iyo qof xoog uu ku shaqaysta leh oo shaqaysan karo wax la soo bixi kara shaqadii meeshuu wax kala soo baxayana helaya marka mar haddaanay xalaal u ahayn inuu qaato ma aha waa inuu iska celiyo wallahu aclam sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay sheekh waxaad ka warantaa ninku haddii uu guursado gabadh uu abti u yahay oo ay dhashay habaryartii ruma habarwadaagtii rumi ay dhashay ma u bannaan tahay arrinta noocaasiya se haddaanay u bannaanayn inuu guursado ma laga furayaa afiiduuna baaraka allahu fiikum dumarka ninka xaaraanta ka ah ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ku sheegay fi lqur'aani alkariim suuratu nnisaa xurimat calaykum ummahaatikum aayadda ka bilaabanta rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam kuwa uu si gaara u sheegay baa jira sida ninku inuu wada guursado gabadh iyo habaryarteed iyo gabadh iyo edadeed dumarka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sheegay wixii ka soo hadha waa xalaal ilaahay baan yihi wauxilla lakum maa waraa'a dalikum an tabtaguu biamwaalikum kuwaa laydiin soo sheegay kuwa aan ahayn waa laydiin xalaaleeyay inaad xoolihiina ku guursataan bimacnaa meheraad u siisaan dumarka markaa muxaramaadkee ninka laga xaaraantimeeyey way qaybsamaan marka la eego sababtay uga xaaraantimoobeen qaarkood waxay uga xaaraantimoobeen nasab awgii nasab ka dhaxeeya waa hooyadii
iyo inantiisa iyo walaashii iyo inanta walaalkii uu dhalay iyo inanta walaashii ay dhashay waa shanta almuxaramaatu binnasab qaarkoodna waxay uga xaaraantimoobeen bisababi sahaara xididnimo ka dhaxaysa awgeed waa gabadha aabbihii marun u dhaxday oo aaya ayaa inagu aynu u naqaanaa soomaalida qaarkoodna edda ayay yidhaahdaan malaa taasaaba saxahe ile loo aayi maaye soo maaha yuu dumaali karaa ta aabbihii uu ka dhintay uma aayaya dee marka maadaama aabbihii ay uxisu yihiin in edda la yidhahdaba mala af soomaali ahaan sax waxaa kaloo la mid ah xaaska ninka u dhaxday hooyadeed gabadha dhashay waa sodohdii xataa haddii xaaskiisu ay dhimatay haddii ay kala tagaan darajadii hooyadii bay taagan tahay oo xaaraan bay ka tahay maxaarimtiisay ka mid tahay waxaa la mida ninku gabadha uu sodoga u yahay inankiisa u dhaxday waa inankiisa uu dhalay miduu sheegtay maaha iyaduna xaaraan ayay ka tahay gabadha u dhaxday inanta ay dhashay ee isaga la soo kortay rabiiba ayaa la idhaahdaa oo labadii dee kulmin maayee islaan markaa kuu dhaxday inan kaloo ay wadatay oo nin kale ay u dhashay haddii islaantii kaa dhimato ama aada kala tagtaan inantaa waxa weeyaan ma guursan kartid waxaa shardi u ah inaad islaanta ama gabadha weyne inanta dhashay aada la aqal gashay min nisaa'ikum allaati dakhaltum bihina buuhi ilaahi subxana wa tacaala waxaa kaloo jira kuwa bisababi radaac nuugmo iyo jaqniin sababtii xaaraan ninka kaga noqota oo shantaa nasabka xaaraan kaga noqday radaacana xaaraan bay kaga noqdaan oo gabadha nuujisay waa hooyadii inanta ay gabadh wada jaqeenna waa walaashii inankii ay wada jaqeen inantiisuna waa bintu akhiihi waa inantu adeerka u ahaa inantii ay gabadh wada jaqeen lafteeduna inanta ay dhasho iyadana abtibu u yahay oo yaxrumu min aradaaci maa yaxrumu min annasab buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa nuugmada ku xaaraantimooba wixii nasab iyo abtirsiin ku xaaraantimoobay ayaa mamnuuc ku noqda waxaa jira muxaramaat bilixtiraam waa dumarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam dee iminka maba joogaanbe ixtiraam la ixtiraamaya awgeed baa ragga oo dhan laga xaaraantimeeyey kuwa asbaab kale ku xaaraantimooba ayaa jira oo haddii ninku xaaskiisa uu tuhmo oo waxaa licaanka la yidhaahdaa uu dhex maro dhaaraha adag ee nacdasha wataa sidaasi ayay ku kala tegayaan abadiyan baanay xaaraan uga noqonaysa marka waxaan filayaa su-aasha jawaabteeda inaad jawaabtayda ka dhex fahamteen oo gabadha ninka ay habarwadaaga yihiin iyadaaba xalaalo ah iyo taa ay inaabtiga yihiin oo ilaahay kumuu darin dumarkaa laga xaaraantimeeyey marka inanteediina maxaad umalaynaysa abtinimaduna waa abtinimo markaa curfiya ama af soomaaligunbaa abti la odhanayaae dee sharcan wax abti lagu tilmaami karo abtinimadii ay kaga xaaraantimoobeysay ma aha wallahu aclam sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay waxaad ka warantaa sheekh haddii maalin rabadaana ay biyihii shahwadu igaga yimaadaan jimaac waxaan ahayn ama galma aan sameeyey waxaan ahayn arrinta noocaasi maxaa i yeelaysaa soonkaygii afiiduuna baaraka allahu fiikum haddii ay dhacdo qofku maalin rabadaan in uu seexdo hurdada uu ku riyoodo oo biyo ay ka yimaadaan soomkiisu waxba noqon maayo culimaduna taa waa isku waafaqsan yihin ana alixtilaama laa yubtilu siyaam haddii isagoon biyaha soo saaristooda u qasdiyin ay ka yimaadaan ama xanuun ha ka keeno ama sabab kalabe taasina soomka waxba yeeli mayso haddiise soo saaritaankooda isagoo soo jeeda uu qasdiyo taasi soomkiisa way jebinaysaa waayo wuxuu noqonayaa qof aan ka soomin shahwadii ilaahayna wuxuu tilmaamay in laga soomayo shahwada sida looga soomayo raashinka iyo sharaabka yadacu طacaamahu
وشرابه وشهوته من أجلي والله أعلم. sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay haddii aniga oo sooman qof ila dagaalamo oo uu ku joogsan waayo inaan idhi waan soomanahay anigu markaa ma iska celin karaa ma la dagaalami karaa afiiduuna baarakallahu fiikum. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi isagoo la hadlaya qofka sooman fain saabahu axadun aw qaatalahu falyaqul innii saa'im. haddii uu qof la caytamo ama uu la dagaalamo ha yidhaahdo waan soomanay. axaadiidka qaarkeed 3 jeer bay ku celisay innii saa'im innii saa'im innii saa'im. marka hadduu taa kaaga istaagayo inaad intaa dhaafisaa sax ma aha ood adigu caytanto ama aada dagaalanto. haddii uu ku istaagayo kelimaad kale walow hanjabaad ba ha noqdaan oo innii saa'im ta aan ahayn oo innii saa'im aanu ku istaagahayn kuwaasi ayaad odhanaysaa. oo ilaahay wuxuu uhi idfac bilatii hiya axsan. waxaad isku difaacdaa yacnaa midbata ay ka sahlan tahay oo ciddii ku soo weerartay hadal kugu soo weerartay ama gacanba kuula timi adoo arrin sahlan iskaga difaaci kara ta adagee dhibka keenaysa ha u tallaabin. haddaad u tallawdo waxay noqonaysaa tacaddi iyo xadgudub inaad samaysay. haddii markaa hadalba uu ku istaagi waayo cid kaa qabanaysa oo kaa kaxaynaysaana aanay jirin xaq baad u leedahay adoo sooman inaad iska difaacdo. oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka waa u baneeyey inuu naftiisa difaaco. udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu wain allaha calaa nasrihim laqadiir. waa intii aan jihaadka weerarkaaba aan la sharciyeyn ilahi wuxuu le waxaa loo fasaxay kuwa lala dagaalamayo dagaal dulmiya lagu hayaa inay isdifaacaan. idfac bilatii hiya axsan. rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay saa'ilka ka soo xadgudbay in la iska difaaco oo qofkii ay u bannaan tahay. oo wuxuu ihi man qutila duuna damihi fahuwa shahiid waman qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna cirdihi fahuwa shahiid. ahlucilmiguna waxay tilmaamaan qofkii muxrimka ahaa ee ilaahay uu ka mamnuucay ugaadhsiga haddii ugaadhi ay soo weerarto oo inuu dilo mooyaane si kale aanay kaga tegahayn ugaadha inuu dilaa inay u bannaan tahay oo markaa uu fasaxan yahay oo isla markaa aan laga qaadahayn wax jazaaya neef u dhigma ugaadha bixi aan la odhanahayn. marka almuhim qofkii adoo sooman ku soo gardaraysta sida ilaahay uhi idfac bilatii hiya axsan ayaad yeelaysaa. ta ugu wanaagsanina waa taa rasuulku uu sheego innii saa'im innii saa'im innii saa'im. haddii taa uu ku tegi waayana ta xagga sahlanaanta ku xigta haddii markaa dee gacanta uu kuula imanayo oo inaad gacan fiiqdo aad iska difaacdo mooye si kale aanu ku tegahayn markaa waad iska difaaci kartaa. wallahu aclam. baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra. sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay sheekh waxaad ka warantaa haddii qofka soomani waxa uu niyadiisa uu ku hayaa ay yihiin waxyaabo xunxun arrinta noocaasi soonkiisa wax ma u dhimaysaa afiiduuna baaraka allahu fiikum. way dhacdaa qofka bani aadamka in qalbigiisa ay ku soo duulduulaan waxyaabo xun oo naftiisu ay ku sheekaysato si inuu xumaanaha qaarkood sameeyo ama xuquuqda qaarkeed inuu dayaco. xadiidu nafsi baa la idhahdaa sheekada nafta. waxaana rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay sida bukhaari saxiixiisa ku wariyey inaan qofka waxyaabaha naftiisu ay ku sheekaysanayso aan loo qabanahayn bimacnaa dembi aan looga qorahayn cadaabna aanu ku mutaysanahayn ilaa sheekadaa naftu ay isu bedesho hadal oo qofkii uu ku hadlo amaba si ay isu bedesho camal oo wixii uu muujiyo oo wuxuu sameeyey uu ka dhigo. qaala calayhi salaatu wasalaam ina allaha tajaawaza lii can ummatii maa xadatat bihi anfusuha maa lam tatakalam aw tacmal.
ilaahay ummadayda wuxuu iga dhaafay buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa naftoodu ay ugu sheekayso waa sheeko xadiidu nafs weli go-aan ma noqon ilaa qofku waxa uu ku hadlaayo wixii naftiisu ay ugu sheekaysay oo nafta waxay ugu sheekaysay hebel cay inta aanu caayin ku dambaabi maayo laakiin markuu caayo ee uu ku hadlo wixii naftu ugu sheekaynaysay marka waa laga qoraya waa loo qabanaya ama aanu wixii samayn oo nafta waxay ugu sheekaysay hebel dil waa sheeka uun iyo wax qalbigiisa ku soo duulay mar haddaanu dilin dembigii dilka loo qori maayo laakiin haddii camalkii uu sameeyo dilkii uu ku dhaqaaqo markaasaa loo qoraya waxa iyaduna la mid oo camal ah haddii qofku xumaantii uu go-aansado oo arrintu sheekada nafta iyo waxyaabaha qalbiga kusoo dhacdhacaya ay dhaafto go-aan ay isu beddesho oo qofka go-aansado qof muslima inuu dilo go-aankaasi waa loo qoraya waa dembi qofka go-aansada inuu sinaysto inuu khamri cabo inuu waxa weeyaan qof muslima caayo go-aansaday waayo go-aanku waa camal qalbigu sameeyey caziima camalka qalbiguna wuxuu la mid yahay xagga dembiga camalladan xubnuhu ay samaynayaan ولهذا رسولك عليه الصلاة والسلام وحو يري البخاري مسلم وريه من حديث أبي بكر إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار هذه لبضة مسلم سيفا إسكالوري مادان كلا دلي إيكا وحد لي والنار تيقليا صحابة وحنا هذا القاتل فما بال المقتول كان يوحبود دلو قرنا يوحو ناركو قلي كلا دلي محوية هارنكيسو محو ناركو قلي قال عليه الصلاة والسلام إنه كان حريصا على قتل صاحبه وحو كد ذلك بمعنى أصاق عن صدي إنه كان دلو لكن ولا جوه الريون مركزنا وحال لقوا عقاب قوان صدي دلك حارتها مركا وحا عاد قلبي كوهيسا هدو يا وحسدي سحاران واه xumaantaas sida kuwii aynu darsiga hore ku tilmaanay shirkigii iyo xasadkii iyo xiqdigii iyo waxyaabo la midka ah waa dambi laakiin soomkaagii jabin maayaan laakiin ajarkiisa yaraynayaan oo meesha ay ka saarayaan hadday yihiin waxyaabo dembiyood go-aansatayna waa la mid haddii sheekada nafta ay tahayna sheekada nafta intaanad ku hadal ama aanad go-aansan ama camal muuqda aanad u rogin lagu qaban maayo wallahu aclam بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا شيخ سائل كان وحا وليه وحا اتكورن تهدي قفكم مركو اخريها يا قرآنك وكا اخريها عندها انت نوع عاسية مكهلة يا اجركي قراءة افيدونا بارك الله فيكم قفك وحا واخريها وانو نقضو وح نفتي سواي مقليس ديانو مقلهين قفكم مركا قراءة الله ورن مايو ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك السبيل أبو الله سبحانه وتعالى صلاة ذلك الإمام الشافعي الدعاء كفت سري يعني كرها وقادم وحول حتى يسمع الآخرون إلا أتقار في سهر ضدك كلام مقليان خاصنا هودقين حتى لا تسمع نفسك إلا أن أدقوا اسم قشين لكن لما أقول حيث يوم إذا أدقوا أدمقليسو dadka kalena aanay maqlahayn ka dhigo waxaana culamaa shaaficiya fuqahada ay tilmaamaan qofku hadii qiraa'adii waajibka ahayd salaada dhexdeeda iyo adkaartii iyo ducooyinkii uu carabka ku dhaqdhaqaajiyo laakiin aanu maqal sawdkiisa inaanay ka ansaxahayn waa inuu isagu ismaqashiyo marka haddii indhaha inuu ku eegayana taasi waa daawasho وأنا عرب نقاشين نواقو مقلينا آنو الصمين ما كان نقول ما يسقي رعادي أشر كاللجيه لهي علماءنا وحي هذا قفك قرآن كأنه دش كآخرية يأنو كتاب كآخرية وحفظ لي بدان إنه كتاب كآخرية وهي وحي هذا أخرنت كتاب كلا عبادة كتشرة وعبادة اللسان هي عبادة العينين عبادتي عربك وعربك القرآن كأخرنتي سوكون رقاتيي
iyo cibaadadii indhaha waa eegitaanka musxafka labadaasi ayaa laga helay marka qofka qur-aanka akhrinaya inuu daawado un maaha waa inuu carabkana ka akhriyo inuu indhaha ku eegaana oo musxafku ka akhriyaan waa sida fadliga badan wallahu aclam baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay waxaad ka warantaa qofka qaata mushahar toddobaadla ah haddii aanu toddobaad shaqaynin oo uu haddana qaato lacagtii mushaharkii maxaa ay diintu ay ka qabtaa afiiduuna baaraka allahu fiikum waxay ku xidhan tahay taasi sababta u shaqayn waayey haddii la fasaxay oo shaqadii laga fasaxay mushaharkiina la siinayo qaadashada mushaharku markaa dee waa mid xalaal u ah oo ay shaqadii fasax buu ka haystaa oo dadkii shaqada lahaa ayaa u ogolaaday isagoon shaqaynahayn mushaharkii inay siiyaan haddiise waktigii la yidhi shaqee ee mushaharkaa uu ku qaadanayay uu shaqayn waayey iyadoon loo ogolayn oo fasax aanu u haysan wuxuu noqonayaa mushaharkaasi mid xaaraan ah oo mushaharku wuxuu muqaabil u yahay oo u dhigmayaa shaqada qofkani uu qabtay marka isagoon shaqadii qaban hadduu yidhaha waan shaqeeyey waa macallin tusaale ahaan waxaa laga rabaa bishii intaasoo xiisadood qaar ka mida buu maqnaa fasaxna kumuu maqnayn waa inuu yidhaahdo haddii xataa la ilaabo iga jara maalmaha mushaharkooda haddii markaa loo ogolaado la iska sii lahaa me annaga ku ogolaano iska qaado waa halkeeda laakiin isagu waa inuu ogaado inaanu horta xaq u lahayn maalin aanu shaqayn mushaharkeeda hadduu shaqaalo dawladeed yahayna waa sidaas oo kale xataa xagga waktiga waxaa jira meelaha qaarkood buug yaallo qofka shaqaalay waktiguu soo galay iyo waktiguu baxay uu ku qorayo ma banaano qofku waktigii la isku ogaa intuu ka soo habsaamay haddana waktigii la isku ogaa inuu ku qorto meesha waa been waana khiyaano xataa qofku waktiga shaqada uu ku dhex jiro shaqadii loo diray waxaan ahayn wax daruuro kalifayaana aanay jirin ma aha waktigii laga kiraystay ila waktiga waa laga kiraysto mushahar buu ku qaadanayaa inuu ku bixiyo macallinku intuu usoo galo ardaydii la yidhi wuxuu dhig inuu kitaab iska soo qaato kitaabkiisa iskaga dhex raacdo ama imtixaan iskuul kale leeyahay ama jaamacad kale uu iskaga dhex saxdo waktiga qoladanaa leh waana laga kiraystay mushaharka uu qaadanayana waktigana lagaga iibsaday muqaabilu iyo u dhigmaa marka arrintaa shaqada aad baa loo fududaystaa oo qofkani inuu ajiir yahay uu kiraysan yahay oo ciddan u shaqaynaya ama dawlada noqoto ama shiciba u kiraysan yahay waktigaa lagu ballamay inuu shaqeeyana manfacadiisa ay leeyihiin dadka heshiiskaa la galay dadka badankoodu ma dareensana sidaasi ayaanay ahlucilmigu fatwoodaan wallahu aclam baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay maxaa ka jira arrinta ay soomaalidu yidhaahdaan ayga ayaa maalin soomay afiiduuna baaraka allahu fiikum الكلب حيوان يعني غير مكلف أي هو حيوان عن مكلف هاي لا يحبه ومدرين وحنا إلهي سبحانه وتعالى ومدين الصوم كنا وحو كمد هاي تكاليف تشرعي قاع إلهي وصاري كوا مركا عقلي قاله مير كقبا مركا وحده اليوم أي صوما قرآن كإلهي كمده ama xadiida rasuulka saxiixaana anigu waxa weeyaan maan arag Soomaalidu waxay leeyihiin sheekooyin badan oo ay ku saabsan oo diinta aan sal ku lahayn ilaahay aygu u neceb yahay waxa abuuray bayda yaa u sheegay taa inuu ilaahay aygu u neceb yahay waxaanu ka sii neceb yahay baydaadaan ayga u neceb yahay qofka ka qaylisay waxa laga yaabaa qof arkay dad ay ku gardaroonayo dhibaataynaya inuu hadalka yiri si uu dadka uga celiyo laakiin ma hadal إلهي ويري سبحانه وتعالى أما الرسول كو يري أين مركا دانو أي مدو أهين بلا صواب مركا لو مدي لكره دانو ريب لهاي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الكلاب رسول كو يحو النهي أيد إلا الله وقال إنها أمة من الأمم
waxaan waa ummad kamida ummadaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuuray muslim baa saxiixa ku wariyay wallahu aclam